الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما هذا سبحانه وتعالى waxaan maanta halkan idinku yeedhnay waxa weeye in badan baanu aamusnayn oon islahayn waxaa Soomaali ku maamaada gamca geli jiro hoos baa loo dhaqaa doorashadii wanaagsaneed ee shacbigeenu si fiican u qaleen haka daba geenina xumaan adduunka niyad jabisa iyo shacbigeena hadda waxaa la yidhi rati ninkii lahaa dabada haya ma kaca baa la yidhi maanta guusha aynu gaadhnay sumcadda aynu helnay shacbigeena footeeyey isbeddel u footeeyey waxaa moodaa inuu madaxweynaha Muuse Biixi u dalkii sumcadiisii iyo wadajirkiisii iyo horumarkiisii uu dabada hayo markaynu taariikhayno ficiladu sameeyey Muuse waxaa ka koowa komishankii ayuu gudoomiye ku-xigeenka ka dhigay laba shakhsi oo isagu soo magacaabay waanu iska dulqaadanay xasbuna allahu nicma wakiil baa niri wuxuu ku xigsiiyey agaasimihii guud ee komishanka oo isagu tartan ku soo bixi jiray inay magacaabi jirin ayuu madaxtooyada ka keenay iyadana waanu iska aamusnay wuxuu bilaabay in musharaxiintii markii loo hadhub qaaday in musharaxiintii aanu sharaxnay ee beeshii ka soo jeeday ee potentialka oo qaarkood haystaan sinjiyad shisheeye inuu xabsab kala daalay kuna qasbay inay tanaasulaan waanu iska xishoonnay ilaa inta doorashada aynu heshiinay waxaan doonaynay inay doorasho noo dhacdo bilaa buuqi wuxuu doona ha sameeyee aanu hirgelino uun bigger pictureka inay doorasho dhacdo oo baarlamaanka 15 sano ku jiray bilaa sharciga taxku waxa gaaladu yidhahdaan tax ayaa suuqintu ay ka active tahay si loo bedel lahaa guurtidaas ka fadhiisatay ee dhaxalka ah ee dhaxalkii labaad maraysa kii hore dhintay kii kama dhintay ee constitutionka in loo bedelo si loo tirtirgeliyo executive-ka isna saqiiray intee qofba qaadan ilaa maalintii la doortay diyaaradii tee qof qaadan weydo faleedku iska baabaa aan kicinba الحمد لله رب العالمين وكو guulaysanay dulqaadkaasna ilaahay maadi weeye tolerance baan keenay hadda wuxuu bilaabay madaxweynuhu kuwii noo soo baxay ay isku beesha ahayn ward markii hore diiday inuu sharco uu qaarku ku yidhi waxa tiijilib yar oo ma soo baxaysa anagu qaadanay bis ku qabsanay in markii soo baxeen farta ugu yeeray khayr ahaan u ka haystay doorashadii asxaabta gashay ee sida 2006 u galay kulmiyay oo cid aan sameynay isbahaysiga uu ka bedelo qabiil buu bedelay qabiil ayuu bedelay aniga Cabdiraxmaan ayuu oo laba xusbiyood xusbiyadu reer ma ahaane waa lagu wada jiraa beelaa reer Soomaaliya ayuu xagaradka la'aanta ku leeyahay dadka gaarasho gaaban ahaa laba noor isku reera isku kay tagay wada maxay halkaas u maraya maanta waxaas dhan waxaan islahayn ha ka daba geynina wanaagii adduunka maqlay iyo shacbigeena niyada wanaagsan ee soo qabsaday ee footay si fiican u qoday in la yiraahdo war kuwaas Soomaali isma dhaanto waa kuwa iyagu hays durbay haysta waxaan leenahay madaxweynaha lacagtii shacbiga islaanta tamaandada haystata hilibka iibinaysa
ninka baabuurka wata een waddo haysan ee road taxation laga qaadayo islaanta aan haysan masquul haysan oon har haysan ee cashuurta laga qaadayo lacagtii ummadda masaakiinta ayaa maanta lagu iibsanayaa xildhibaanadii lagu iibsanayaa waa nasiib daro in cashuurtii ummadda lagu isboolgareeyo lagu xumeeyo lagu dhaqan xumeeyo xildhibaanadii u soo baxay ee shacbigu doorteen waddadooda laga tugo wuxuu madaxweynuhu sameeyey rag xusbiyada ah oo cida oon awood u lahayn oo qaarkood aan xusbiga ku jirin inuu ilaahay heshiis ma la galay oo kulmiye la galeen taasna waddu inagu faraya inuu qofkii kastaba uu yidhaaho anaa Soomaaliland anagu geliya heshiis oonay nidaam dowladeed madaxweyne muuse uu iska duuduubay madaxweyne wuxuu doonayaa inuu shaar leeyahay oo isaga ku saqa oo ku siman inuu Soomaaliland u talo doonaya laakiin waxaan leeyahay madaxweynuhu Soomaaliland taas kama suurtageli karto hayna tacab khasaarin baan leeyahay hayna tacab khasaarin maalinta caarika la hadlayay ayuu yiri cirkaa soo dumiya habar Yunus halka ninka ciidagalay halka galama ka geliyay hadda waxaan ku leenahay cirka hadda soo dumisid hadda meel ka gashaa male cirka inagu soo dumin aan ku leeyahay dheer buugayga waxaan ku hayo day by day waxaan kala hadlayay arrintii caaray haddaan soo bandhigo Soomaaliland maanta nabadda kuma jirto laakiin da umul baanahay umul soo xareeyay waxbaan qarinna waxaan leenahay madaxweynaha wasiiradiisa shaqadii ka tagay ee hodheelada uu ku baayacay habeenkii ku gudiya ee qabiilka markuu ka xaysanaya imise wasaarad wal sameynaysa intaasoo xildhibaan oo loo yeeray wadareerkiina wasiir baa la siinaa baa la yiri imise wasiir yaa sameynaysa ana dalka inaga qaribin waxaynu yaa laba arrimood oo muhiim ah inoo yaala mid waxa weeye in momentum ka jira internationalka ee kiiskeeni maalkiisa adduunka dhan ka hadlayaan inaynu ku hawlgalno gamcaysaysanaa oo aynu xuquuqdeeni doonano inagu midaysan oo inuu momentum ka faa'iideysano midna waxa weeye Soomaaliya oo jaarnahay oo qasan oo jirin doorasho ka socota doorashadaas Djibouti ku jirta Mareykan baa ku jira Kenya ku jirta Ethiopia ku jirta intuba danteeda ay ku jiraan saameynta weyn inaga nagu leedahay inaynu arrintaasna aynu shaydaan naaranaho inaanu halkaas soo fadhiisan caqli xumo kale oo farmaajo kale ah oo wixii loo doortay iloobo sidoo Soomaaliland u xandarmayn galeen laha ka shaqeeya inaanu dib inoogu iman iyagana aan gacan siino dad wanaagsan u soo baxaan si aan laba wadano jaar ah u samaysan lahayn hawlahaas ay noo yaala gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisu waa dadkeeni wasaaradda arrimaha dibadda 6 bilood waa bilaa wasiir adduunkana dynamics ba ka socda hoonka ogti wax ka socda taas waxa ku tusaysaa in markii hore aan shaqeyn jirin roads Soomaaliland road outsourcing labadu way ka maqan yihiin taas waxa ku tusaysaa in markii wadanka aan shaqo socon wadankan bariigad u qabatay waan isku xishoonay shaqada adduunka wada ogtay maanta dhaqaalaheena halku mariyo maciishadii ka ru kacday dadkeenu maanta boqolkiiba 8 waxa lagu qiyaasaa wadan afarta wadana ugu faqiirsan ayaan ku jirnaa dadkeena jaba ku dhacay niyadu waxay soo celiyay isbedelka maanta shacabku footeeyay waanu amaanayna shacabka reer Soomaaliland
isbeddelka waxaan leenahay kuwa ku soo baxay isbeddel gamcihiina ku burburina wixii laydin soo doortay ilaaliya integritykiina wanaagiina ilaaliya sharaftiina ilaaliya qarankiina ilaaliyaan leenahay